السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سوري cuntaan cunaaya waxaan rabaa inaan tuso waxaan ku noolahay waa shurba waa soup shurbadaasaan samaystaa waa baaba ganuush iyo qudaar badan oo la isku shiiday cunto solid ma cuni karo because digestive tract-gayga mess up gareeyeen kanna waa casiirkaas wuxuu ka suubsan yahay isagana beer iyo ma aragta tufaax iyo canab iyo hal timir camal isaga darsadaa sometimes hadday macaan aan sweet tooth aan macaan yara rabo laakiin sokor kuma daro. And I want to shout out to Fathiya Cabsiye. Thank you so much inaad sheegtay kayskayga aad weliba aad duca iigu dartay in laysoo duceeyo ilaahay unbaa og Fathiyay ilaahay khayr ha kaa siiyo lianna wax aniga laygu suubshay wax fudud ma aha. ilaahay markaan u ducaysanayaan waxaan dhahaa ilaahayoo kayskayga adig keliyaa og aniga inaan waalneen adigaa og in microchip lay geliyay deliberate ah adigaa og in lay torture gareeyo non stop traumatization laygu suubiyo adigaa og in been layga sheegta adigaa og ilaahayow ii saqir ummaddaa bini aadanka ah ii saqir wax waliba oo noola iyo waxaa nooleenba adduunkan because waxay rabaan inay iga dhigaan reer aakhiraad anigoo adduunkan ku soo nool. marka Fathiya thank you walaalo thank you so much ilaahay khayr ha kaa siiyo. waxaa kaloo rabaa inaan idiin sheego exactly waa siday Fathiya sheegtay kayskayga is not limited to me. It's not limited to me because aniga waxaan ahay case study. They turned me into a guinea pig. Guinea pig ma taqaanaa rat labka markii guinea pig waa sida dooliga jiirka oo kale ay ku tababartaan ma aragtay scientistka kuwan culamaaga markay laabka ku jiraan laboratoryga xayawaankan guinea pig la yirahdo af Soomaali kuma aqaano asagana sidaas oo kale loogu tababartaa waxaa waaye case study oo xayawaan aniga markii microchipka la geliyay gurigayga Long Beach Los Angeles ku iga korkeyga ahaa militariga aad ugu jira case ma aragtay programmadan because waxay ka imaanaysaa darba waad garanaysiin kuwiina waxaan conspiracy wax horta ma jirto kelmadda conspiracy theories